زمزم محمد عيقة وكشرحان حسبك كلمية كان ميدا مشرحين تقولها وكيلة قبل كساحل أيا وفتي بلارن ويهوغامين يساوحي قارين دقمدا مانديرا قارهانا مقالة الشيخ عبدال تاسوي كورمير اي كسو مرتاي حفيسيادا اي كفرتاي مقالة الشيخ عبدال يديقان دهو سمادا كديب كورمير كحفيسيادا وحي وفتيقان اي هوغامين يساو زمزم محمد عيقة مشرحادا كشرحان حسبك كلمية قبل كساحل مناسبة بلارن لوغو بينيي ديقانka dooxada hoos yimaada magaalada Sheekh Abdal halkaasi oo lagu soo dhaweeyay munaasabadaasi ayaa ahayd taageerada loogu muujinayo musharaxaad Samsam Maxamed Cige iyo Shucayb Muuse Alaale oo ka sharaxan golaha deegaanka ee gobolka Saaxil waxaana munaasabadaasi ugu horreyn ka hadlay odayaasha waxgaradka salaadiinta dhalinyarada iyo haweenka waxaana ay halkaasi ay ka sheegeen in codka hiiliyo hooba ay la garab taagan yihiin musharaxaad Samsam Maxamed Cige labada musharax ee Samsam Maxamed Cige iyo Shucayb Muuse Alaale way ku mahadsan yihiin golada soo dhaweynta samaysay waana ugu mahadnaqaynaa oo ballan weeye ballanka aan rumayno oo cidina maqlaysan matalo ilahay qaadato midda kuwa hore ugu kala oo iyo kala shaqeyn kara asbaab maslaxatiga si isku joogo oo kullaha oo kulay waxa weeye laba xildhibaan oo Shucayb Muuse Alaale oo min active ah oo mudakar ah iyo Samsam Maxamed Cige oo iyana siyaasadda cadaadiya oo golay baarlamaanka maanta uu tafaxaydan ilaahay geeyay ayaa halkan la isku wadaarsaday in codka la isiisiyo foodkiida wixii bay naga xiga laba wiil iyo barbay naga xiga iyo qof kasta oo soo diyaar garoobay labada xildhibaan codka siiyo inuu mid waliba halkiisa musharax ka noqdo dadaalo oo kaarkiisa diyaarsado oo soo shaqeeyo oo maalinta foodka ku soo oo kaalinta ugu horeeya galo oo waqtigu ka dhicin ayuu kula dardaarmaya anagoo beeraleyda dooxan degmada Abdal dooxan waxa la yiraahdaa carruur soo dhaweynta waxaan u qabanay labada xidhiba aan ku soo dhaweeyay codkayga aan ku siinay taageero soo dhaweyn wanaagsan labada xidhibaano Samsam iyo Shucayb Muuse Alaale yaan ku soo dhaweynay madashan sharafta leh waxaan ku baxsuunay ama ku soo dhaweynay haddaanu nahay odayaasha deegaanka degmada Madeera waxaan ku soo dhaweynay labada musharax Samsam Maxamed Cige oo sharaxan xisbiga kulmiye golaha wakiilada iyo Shucayb Muuse Alaale oo sharaxan golaha deegaanka Saaxil ayaanu ku soo dhaweynaynaa kuna dooraneynaa kuna ugu ballanqaadaynaa codkayaga iyo cududayada iyo cuudkayaga waxa aanu leenahay labada musharax wiilka ku soo dhawaada ballanku kii weeyaa qaadateen ballanka alif ilaahay waxaan weydiisanaa ilaahay inoo aqbalo waxaan leeyahay anigu wixii bini'aadamku laba qof hadday heshiiyaan waxa la yidhi waxa ku saddexaad gacan saddexaad oo ilaahay musharaxaad Samsam Maxamed Cige oo ka sharaxan xisbiga kulmiye gaar ahaan golaha wakiilada ee gobolka Saaxil ayaa halkaasi bulshada uga soo jeedisay hadallo dardaaran iyo taageero isugu jira oo ku muujinayso waxyaabaha ay qaban doonto haddii ay ku guuleysato xilka xildhibaannimo ee golaha wakiilada waxa weeyaan qof kasta ilaahay baa karaameeyay qof waliba waa karaamo waxaynu isugu nahay sharafka iyo qiimaynta biidnillaahi kariim aad iyo aad baan idin wada salaamaya qof kasta halka yimi waan uga mahadnaqayaa sida sharafka iyo ehelnimada iyo qiimaha leh ee ay nagu soo cajiibeen casuumadiinana waan idinka guddoonnay waxaan ku soo dhaweyn doonaa xildhibaanka golaha deegaanka inooga sharaxan oo runtii nin qiimo badan
oo wallaahi anigoo daacad u hadlayo ah nin miisaanle oo reerkeenna wadi kara halkaa raggay naga tagaan rag fudfududii bay noqon jireen laakiin ninkii inoo soo midho dhalin lahaa ee qof waliba ku nasan lahaa gobolka aynu leenahay haddana aan cadaayo waxba ka ahayn ayaynu wadnaa oo reer cabdi soo xuleen waa shacayb muuse alaale ilaahay ha ku guuleeyo isagana musharax shucayb muuse alaale oo ka mid ah musharaxiinta golaha deegaanka ee gobolka saaxil ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay waxaana uu u mahadnaqay soo dhoweynta munaasabadan loogu sameeyey deegaanka dooxada isagoona u mahadnaqay bulshada ku dhaqan degmada Mandheera kii ilaahay qoray ee diiwaankan ku yaala aniga iyo Samsam iyo inta kale sharaxanba ayaa halkan tagaya sidaa daraaddeed horta taan ugu duceeya in ilaahay ku kuraasta geeyo ee ku guuleysta aanu noqono ugu duceeya wasaamin ma waxaan looga baahan yahay idinka iyo alla ka bedelaan sidii aan dadkan u kasban lahayn waayo sida sheegtay musharaxadu dad badan ayaa lala sharaxan oo cid walba leh annagana waxaan looga baahan yahay dadaalkeedii sida bulshada iyo dadka ka badanba u kasban lahayn idinkana waxaad noo barbar istaagi lahaydeen sidaad codkiina noo siin lahaydeen wafdigan ballaadhan ee hogaaminaysa musharaxaad Samsam Maxamed Cige ayaa kormeer kala duwan ku soo martay xafiisyada ay ku leedahay degmada Mandheera iyo deegaanada kala duwan ee hoos yimaada Xamse Qurbaani warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Sheekh Abdaal